waa subaxnimo isniina taariikhdu waa 10 Agost 2012 waxaa loo dareeray garoonka aadan cadde si halkaasi baaritaan ay u maraan dhammaan dadka ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo ka dhacaysa iskuul Booliisia ama tababarka kaahiye markii la gaaray goobta shirku ay ka dhacaysay oo ammaanka si aad loo adkeeyay ayaa waxaa markii hore la dhaariyay xildhibaano hore la isugu haystay waxaana taasi ay keentay in qaar ka tirsan xildhibaanada ay muranka keenaan doorashadii ayaa bilaabatay oo waxaa ku tartamaya 25 musharax laakiin daqiiqado uun marka ay ka dhinay doorashada waxaa musharaxnimada ka tanaasulay 3 musharax waxaana isku soo haray 22 musharax oo xilka u tartamayay doorashadii ayaa bilaabatay oo sanduuq aad u yar ayaa waraaqadihii codbixinta lagu gurayay oo waxaa dhacday riyo Soomaali ay ku taamayeen ilaa 42 sano markii ugu horeysay doorasho xalaal ah inay ka dhacdo magaalada Muqdisho wareegii hore ee doorashada waxay ahayd mid fajac keentay oo waxaa haray musharaxiin la filan karay inay gudbi karaan Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxa uu helay 64 cod Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 60 cod Cabdiweli Maxamed Gaas waxa uu helay 30 cod Cabdiqaadir Cali Cosoble waxa uu helay 27 cod Cabdullaahi Axmed Cadow waxa uu helay 23 cod Cabdullaahi Macalin Baadiyowna waxa uu helay 21 cod sida daraadeed waxa wareegii labaad u soo gudbay 4 musharax ee ugu codka badnaa waana Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiweli Gaas iyo Cabdiqaadir Cosoble dadka daalaya ka muuqda oo maalin dhan ayaa kuraasta lagu fadhiyay laakiin waray ku farxeen ayaa yimid oo ah in Cabdiweli Gaas iyo Cabdiqaadir Cosoble ay xilka ka tanaasuleen sida daraadeedna loo gudbay wareegii ugu dambeeyay oo waqtigii waa soo yaraaday Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaana isku soo haray codadkii ayaa la codeeyay tirintii ayaa bilaabatay oo waxaa dhacday in madaxweyne cusub oo ku noolaa guri ku yaala xarunta xisbiga PDP agagaarka eelboorka inuu ku guuleysto xilka ugu sareeya Soomaaliya oo waxa uu helay codad gaaraya 190 cod halka Sheekh Shariif uu helay codad gaaraya 79 cod Soomaaliya wakuka madaxweyne cusub waad heshay gudoomiye baarlamaan iyo gole baarlamaan waad haysaa ku meel gaar waad ka baxday oo horumar ayaad filaysaa mardhow Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa hadal aad u qurux badan halka ka jeediyay dhammaan dadkii halka joogay iyo kuwii daawanayna waa ay la dhaceen mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan ugu hambalweeyo walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya guusha halkan laga gaaray oo ka gaaray waxaan rabaa inaan cadeeyo natiijada doorashada inaan u hoggaansanahay xaq ay tahay ku qanacsanahay kuna shaqay doono wax ka wanaagsan ma jiraan qofku inuu tartamo haddii uu guuleystana dadka uu hogaamiyo haddii laga guuleystana shacabkiisa uu iska dhex fariisto wax ka fiican ma jiraan waxaan rabaa intaas inaan ku daro haddii aan guuleysto waxaan jeclaa lahaa in la hambaliyo layla shaqeeyo qofkii guuleystana wuxuu uga firi karaa inaan la shaqeeyo gacan siiyo waxaan u maleynaa dhowr munaasabadood inaan idinkaga sheegay haddii laga guuleysto inaan la shaqeyn doono dawladda ballantii waa halkeedii waxaan awood leeyahay waxaan sii doonaa dawladnimada Soomaaliya ilaahay idankiisa talo iyo waxa la wixii lagaga baahdana diyaaran u ahaa mana ahaa doona insha Allah ta'ala mid dawladda sanka ka gala oo talada ku khasba waxaan ahaa doonaa mid suga talada intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood sida ay la shaqeeyeen sida gacanta ay siiyeen sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladihii kala duwanaa iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ciidamada AMISOM
siday gacan ii soo siiyeen dhammaan shaqaalaha dawladda waxaan ka baxayaa saaladan ama qolkaan anoon cuqdad qabin oo gacan laygu siiya shaqadaydii aaminsan inaan soo gaarsiiyo daalka maanta inuu ka baxo kumeel gaar laguna doorto madaxdii qaranka caasimadda Soomaaliya halkan waxaa taagan saraakiisha ciidamada waxaa taagan agaasimihii hay'adda nabad sugidda waxaa taagan taliyihii ciidamada xoogga waxaa taagan taliyihii booliska Soomaaliyeed dhammaan saraakiisha ciidamada qalabka sida saacadaas laga bilaabo si uu amnigu uusan u naqanin wax la isku haleeyo waxay ka amar qaadan doonaan madaxweynaha hadda la doorto mudanayaal marwooyin mar kale sharaf ay tahay Soomaaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa mustaqbal ifaaya nabad buuxda horumar midnimo iyo inay gaaraan himilooyinkooda waxaan u maleynayaa inaan iloobay baarlamaanka inaan mahad celiyo sababtan waa iska garan kartid halmaan hadal kuma jiro waa mahadsan yihiin baarlamaanka sharafta leh gaar ahaan ragga ay doortay aad u mahadsan yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa la dhaariyay Professor Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha cusub waxa uu halkaa ka jeediyay hadal kooban oo u badnaa mahad celin ku aadan shaqadii uu soo qabtay madaxweynihii hore waxaan u mahad celinayaa sidoo kale guud ahaan intii ka soo shaqaysay in processkan taariikhiga ah ee madaxweynihii hore jamhuuriyadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku tilmaamay inuu yahay process taariikhi ah waxaan qirayaa waxa maanta halkan ka dhacay taariikhda Soomaaliya inay bog dahab uga qornaan doonaan waxaan sidoo kale iyo si lamid ah si weyn aad iyo aad u weyn ugu mahad celinayaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa saaxiibkayga shalay waa saaxiibkayga maanta wuxuuna ahaan doonaa saaxiibkayga berri haddii aan la yiraahdo waxaan ku ammaanayaa oo aan ku hambalyaynayaa isbeddelka taariikhiga ah ee intii xukunka uu hayay Soomaaliya ka dhacay waa arrin taariikhda Soomaaliya ay xusi doonto magaciisuna mar walba uu ka muuqan doono taariikhda Soomaaliya inuu nasiib u yeeshay inuu hirgeliyo arrinta maanta dhacday dalka inay ka dhacdo xukuumadihii kala duwanaa iyo madaxdii xukuumadahaas ee ayaguna u sabab ka qayb qaadatay arrintaani maanta inay dhacdo waa u mahad celinayaa dhammaan waxaan u hambalyaynayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad ka timaadeen waddadii dhibka badnayd waddo toosan ayaad haatan agta saarteen inta ka dhiman sii wada waxaanan shacbiga Soomaaliyeed aan weydiisanayaa gacantooda hagar la'aaneed si dalkeenna dawlad gebigiiska hana qaada ay uga dhaqan gasho Soomaaliyana ay ku soo noqoto beeshii caalamka ahayd oo maanta bilaabatay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa duruufihii dhibka badnaay iyo waayihii dhibka badnaay aan soo marnay inay noqon doonaan beej la rogay oo laga soo tegay haatan uu noo bilowday beej cusub beejkaas cusubna shacabka Soomaaliyeed la'aantiis wax fiican kuma qormayaan sidii kuwii hore kale waxaan rajaynayaa wax ugu fiican inay ku qormaan mar kale waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa subaxnimo talaada ah
brofesor xasan sheekh maxamuud waxa uu yahay madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota waxa uuna geli jawi la tashi oo uu ku soo magacaabi doono ra'iisul wasaare Soomaaliya ay yeelato